maxaad ka fahamsan tahay golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya? Golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa wakiilada shacabka Soomaaliyeed, waana awoodda ugu sarreysa ee sharci dejinta dalka. Golaha shacabku wuxuu ka kooban yahay 275 xubnood, sida ku xusan qodobka 64 farqadiisa 2 iyo 4 ee dastuurka dalka. qof kasta oo noqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sharci ahaan waxa uu noqonayaa xildhibaan inta uu nool yahay, waa haddii xilka qaadis aan lagu samaynin ka hor inta uusan dhammaysan muddo xileedkiisa, sida ku xusan qodobka 92 ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee dalka. sidoo kale mas'uulkaasi wuxuu xildhibaanada 275 ku noqonayaa dheeri, waana xildhibaan sharafeed sida uu cadeynayo qodobka 64 farqadiisa 4 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya. xubinnimada xildhibaan sharafeed aan dhicin hadda waxaa haysta madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud oo qodobkaasi la ansixiyay intii uu xilka hayay. luqadda rasmiga ah ee goluhu uu ku shaqeeyo waa af Soomaali, lahjaduhuna waa Maay iyo Maxaatiri. sidoo kale luqadda Carabiga ayaa ah afka labaad ee golaha, sida ku xusan qodobka 5 farqadiisa 1 ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee dalka. xarunta golaha shacabku waa magaalo madaxda dalka ee Muqdisho. dastuurku waxa uu ogolaanayaa golaha shacabka iyo gudiyadiisa inay xaq u leeyihiin in qaar ka mid ah fadhiyadooda ay ku qabsan karaan meel ka baxsan xaruntooda, waa haddii ay duruufo ku kallifto iyaguna ay isku raacaan. muddada dastuuriga ah ee golahani waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta lagu dhawaaqo natiijada doorashada, si waafaqsan qodobka 60 farqadiisa 1 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. hadda waxaa la soo dhisay golihii 11aad ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya. haddaba maxay yihiin awoodaha golaha shacabka? qaybaha kale ee barnaamijkan faham ayaan ku eegi doonaa.